dowladda Soomaaliya oo 1 milyan oo dollar ugu deeqday fatahaadaha ka soo cusboonaaday gobolka Hiiraan. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha Ra'iisul Wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa shaaciyay in xukuumaddu ay taakulaynta iyo gurmadka qaran ee dadka ay saameeyeen fatahaaduhu ugu deeqday lacag dhan 1 milyan oo dollar. Mahdi Maxamed Guuleed, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka, ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in shacabka iyo dowladda gamcaha ay isqabsadaan oo gamcaha la isku qabsado sidii loo samata bixin lahaa gargaar degdegna loola gaari lahaa dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiyada iyo roobabka. Si aan ugu dhiirigelino shacabka Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan taakulaynta dadkooda dhibaataysan, waxaanu ka xukuumad ahaan kaga qayb qaadanaynaa 1 milyan oo dollar oo aanu ku taageerayno dadka ay saameeyeen fatahaaduhu, ayuu yidhi Ra'iisul Wasaaraha ahna Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalku. Dhowaan ayay ahayd markii Ra'iisul Wasaare Khayre uu gurmad dadka ay saameeyeen fatahaaduhu u magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya sidii loo samata bixin lahaa dadka ay saameeyeen fatahaadu. Guddigaas oo uu guddoomiye u yahay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.